اللهم صل على محمد النبي الزاهد الرسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro nabiyullaahi daawuud calayhi salaam wuxuu ka mid ahaa duriyadii nebi ibraahim calayhi salaam ayuu ahaa. waatuu ilaahay qur-aankiisu inoogu sheegay nebi ibraahim markuu la hadlayay oo ka hadlayay wamin duriyatihi daawuud markuu lahaa, waxa weeyaan duriyadaas ayuu ka mid yahay. taariikhna sideeda marka la doonayo in la aqoonsado, nebi ibraahim calayhi salaam kolkii la siiyey haajire la siiyey dhulka masar laga siiyey uu guursaday. haajire haddaba magaca waxaad eegtaa waa magaca soomaali. hagar galbeedku waxay yidhaahdaan hagar baa la yidhaahdaa. hagar markaa ama xagar ha ahaata ama hagar ha ahaata, hagar waa magac soomaali ah, waa erey soomaali ah. qalabkii la isticmaali jiray ilaa iminka waa isticmaalnaa annaga, oo berigaana waa laga isticmaali jiray masar, innagana waan isticmaalnaa. taa waxay ku cadaynaysaa soomaalidu inay tahay asalkii adduunka, inay tahay ambiyada faraha badan ee ilaahay uumay calayhim assalaam. waxaa soomaalidu sidaasi lamid ah, ambiyo way lahayd oo dhulkooda laga soo saaray. waatuu ilaahay qur-aanka inoogu sheegay qoom waliba waxaan soo saarnay nebi afkooda ku hadla, dhaqankooda yaqaana ayaan soo saarnay. sidaasi lamid ah meelihii aan soo sheegnay, buurihii aan soo sheegnay iyo dhulyoogii aan ka soo sheekaynay ee yaala taariikhda faraacinada iyo fartii ku qorneed iyo qaar aanba ku qorneen, ahraamta ku qorneen oo yaala halkan yaala ayaa jira. marka dhalinyaro aqoontu waa inaan ku baraarugnaa, waayo aqoontu waa furaha horumarka. dunidu waxay maaragtay noo soo eryanayso ama maaragtay maskaxda inooga qabsanayso, ee luqadaheenna u baabi'inayso, wixii aan ku hadlaynay maaragtay dhaqankeenna weliba tirtiraysa, ee sidoodoo kale ay doonayaan inay naga dhigaan. marka aan iska diidno, teenna aan xajisano, dhaqankeenni iyo afkeenni aan xajisano. hadda waxaad arkaysaa wadamo faraha ka sii baxaya sida walaalaheena jabuuti, faransiis mooye wax kale laguma hadlo. madax hadduu yahay, hadduu macalin yahay, hadduu dhalinyaro yahay, aawe afkii cafarta, aawe afkii soomaaliga, aawe afkii carabiga. maxaa dhacay? waa dhalan rog ballaaran. waxaa la yidhaahdaa isticmaarkii maskaxda ayaa la yidhaahdaa. aan iska qaadno heeryadaas, waa heeryadii gumaysiga, aan iska wada qaadno gebigeenna. marka insha allah waxaan rajaynayaa inaad taariikhda ballaaran aad u fahamteen. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.